suldaan Rooble Xasan Wacays oo kamid ah salaadiinta ku dhaqan gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlay arrinta lixda goobood ee muranku ka taagan yahay sidoo kale waxa uu suldaanku raaligelin ka bixiyay hadallo ka soo yeedhay xildhibaan Axmed Madar iyo sidoo kale xildhibaan Saleebaan Xasan Xaddi oo iyagu ahaa kuwa taageeray lixda goobood in diiwaan gelin laga bilaabo suldaan Rooble Xasan Wacays oo amuurtani ka waramayana waxa uu yiri goobuhu waa gobolka Awdal waana degmada Luqaya taasi mid gorgortan gali kartana maaha waana tu lixdankii isticmaalku xadadkii uu dhigay Soomaaliland ayay ka mid ahaayeen lixda goobood maanta lagu leeyahay waa maroodi jeex wax aqliga kala gari karaan ma waxana ka qaba waxay ummadda ku nool goboladan Awdal iyo Sile iyo gabilayba qaybaha ay ummadan magacan ku abtirsata gadabuursi ay degaan waxa ay ka qabaan maanta xaaladda joogta ay ka qabaan ma noqdo ka qabayeen waana fikirkaas weey ta kale xildhibaanada beeshan ka soo jeeda ka tirsan ku hadlay arrintaasi arrinanan waafaqsanayn fikirkooda cabireen laakiin afkii beesha kumay hadal كمان هذلي كرانو بيشة وكتير وأنا حلدبانة بيشة ما ورا كره حلدبانة بيشة ما لكن فكر كوده كهالي من متلي كمان متلي أفكي بيشة أنا جو كهالي أفكي مدح نقمات كبيشة وحلين هاي وحي أمد السوق قبل خاوض اللي يسلل يقول الله مذاك كلام طانو كقمنا اللي إحنا قبل معقول لما هالك كتير سنين بين كتير سنين وين كتير سنين دونان كوركورتنا ما قالي دونان waxaan la xildhibaanadana waa waxba ku hoos jira diiwaan gelinta laga qabtaa leediin dib ugu noqda nuxkadiya magaalada Boorama